goordhow ayaa dhegeystayaal maqli doontaan barnaamij wareedka subaxnimo oo intaasi ka faahfaahsan waxaase kasoo horeynaya warkii oo kooban oo qaybka barnaamijka waxaana u diyaaraa saaxiibkii cabdixaaji mahadsaned cumar lakiman. subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka kooban ee barnaamij wareedka subaxnimo ee warbaahinta Nation FM. odayaasha dhaqanka, culimada, ururada bulshada rayidka iyo difaaciyaasha xuquuqda aadanaha ee Puntland ayaa ku baaqay joojinta dagaalka maalintii labaad ka socda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. dhacdadan ayaa soo jeediyay in diriirta lagu bedelo wada hadal si loo baajiyo dhiig daata barakaca dadka rayidka iyo burbur soo gaara magaalada xarunta ganacsiga ee Puntland ee Boosaaso. waa in shuruud la'aan lagu joojiyaa dagaalka. waxa aan wadnaa dadaal sidii loo joojin lahaa dagaalkaasi sababay dhimashada iyo dhaawaca si xal wada hadal loo gaaro ayuu yiri gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Puntland ee loo soo gaabiyo Bunsa. waa in la dhowraa dadka rayidka waxa reeban in lagu dhex dagaalamo shacabka dhexdiisa. waa in aan lagu dal dagaalamin dadkii la difaaci lahaa oo aan lagu qasbin inay barakacaan ayuu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha ee Puntland ee Bunsa. kooxo ku weesanaa bistoolada ayaa gudaha degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose waxa ay ku dileen laba ka mid ah nabdoonada ugu caansan degmadaasi Afgooye iyaga oo dilka kadib goobta ka baxsaday. nabdoonada la dila ayaa lagu kala magacaabi jiray Cusmaan Cabdi Saalax iyo nabdoon Cabdilaahi Maxamed Cali Biyonde. sidoo kalena ahaa imaam masaajid ayaa dilalkooda waxa ay ka kala dhaceen xaafadaha Baalguray iyo Raqayle ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. weli ma cadda sababta ka dambaysa dilalka loo geystay labada nabadoon waxaana horey degmadaasi Afgooye loogu dilay nabadoono ka mid ahaa qaarkood kuwii soo xulay ergadii doortay baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya kuwaasoo dilalkooda ay sheegteen al-shabaab. dibadda madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in dawladdiisa ay bixin doonto ilaa iyo 500 milyan oo ah qalabka la isaga baaro COVID-19 oo taageero balaaran loogu fidinayo isbitaalada iyo in la jibaaro talaalka lagula dagaalamayo COVID-19. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii uu Mareykanka aad ugu baahay nuqul ka mid ah Omicron ee cudursidaha COVID-19. hadal uu ka jeediyay talaadadii xarunta aqalka cad ayuu Biden ku sheegay in bilaha jiilaalka ah ee qabowga ee foodan ugu soo hayo uu xanuunka si aad ugu sii baahi karo qaybo ka mid ah dalkaasi Mareykanka. dalalka kale ee caalamka uu xanuunkan ku sii fidayo ayaa waxaa ka mid ah Ingiriiska iyo qaybo ka mid ah midowga Yurub sida dalalka Germany, Scotland, Ireland, Netherlands iyo South Korea iyo qayb ahaan wadamada caalamka ee dhaca waqooyiga dalkaasi America. warkii koobnaa ee barnaamij wareedka subaxnimo ee warbaahinta Nation FM waa naga intaas aan dib idinku celiyo saaxiibkay Cumar Lakiman iyo qaybaha kale barnaamijka. aad buu mahadsan yahay cabdixaaji iyo weliba warkii koobnaa ee qaybta ka ahaa barnaamijka. markana waxaan u galaynaa qaybaha barnaamij wareedka subaxnimo. xaaladda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa lagu soo waramayaa in saaka mar kale ay ku waabariysatay dagaal xoogan oo halkaas